habeenada mugdiga ee qaaradda Afrika Ilaahay wuxuu ku qurxiyay xidigo korista cilmiga iyo iftiinka dunidana u furaya indhaha iyo dhagahaba waxa uu maalinta ka dambeysayna tusinaya waxyaabo cusub dunidana aynu ku noolahay meelaha ugu degan uguna khayraadka badan la waxa kamid ah qaaradda Afrika waxaana soo jiidatay indhaha caalamka balse xayawaanada qaarkood waa gabaabsi qiyaas ahaan 50 sanadood ka hor halkani waxa ku noolaa 450,000 oo libaaxa balse maanta waxa la qiyaasayaa inay ka sii nool yihiin oo kaliya 20,000 waxaanay noqdeen duurjoogta iyo libaaxyadu qaar aad uga sii durkaya meelaha ay ku nool yihiin bilaadanku halkana waxa ka dhacday sheeko gaar ah